magaalooyinka kale aan jecelnahay bal markaan inaan gudubno waxaa kamid ah magaalada Kampala iyo waliba magaalada Malmo ay warbixinada inoo soo kala direen Mukhtaar Xuseen Maalin oo jooga magaalada Kampala iyo Farax Yaasiin Cismaan oo jooga magaalada Sweden ayraahda magaalada Malmo ee wadankii Sweden. xaflad heesara ah ay soo qaban qaabiyeen ururka hidiya dhaqan oo lagu xuseeyay sanad guurada 58 ee xornimada dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay barxadda weyn ee ku taal xaafadda Sabad ee magaalada Malmo ee dalka Sweden. xafladaas waxaa ka soo qayb galay Soomaali fara badan oo iskugu jira aqoon-yahano, waxgarad, rag, dumar, dhalinyaro, caruur, fanaaniin iyo kooxda hidaha dhaqanka. dadkaasina waxay iskugu jireen kuwa ka kala yimid Malmo iyo magaalooyinka u dhow. xafladda waxaa furay wiil dhalinyaro ah oo naafo ah oo ka soo baxay jaamacadda. wiilku wuxuu ka sheekeeyay taariikhdii iyo gobonimadii Soomaaliya. dadka halkaasi ka hadlayna waxay xuseen taariikhdii iyo halkankii dheeraa oo ay Soomaalidu soo martay. dalkii ha ilaabinayna caawisaan. dhalinyaradana waxba bartaan. sidii dalkii u caawiyaan. wuxuu waddankeenu u baahan yahay inaad wax loo qabto. waxa wax u qaban karana qofka halkan wax ka noqda. halkan haddaan wax ka noqono markaasaan waddankeenu u tari karaynaa. marka halkan aan luqadiisa baranno, aan shaqaysano, wax ka baranno, markaasaan waddankeenu waxtar u leenahay. marka hadday dhab naga tahay aan noqono dad successful ku noqdo waddankan. waxaan jeclahay inay xusi doonto taariikhdu sidii SYL. waxaa jira dad kale oo taagan mudane Cabdulaahi Farmaajo oo kale, Khayra oo kale, waa dhalinyarada maanta aan dhihi karno ururkii SYL ayay matalayaan. calanka buluuga haddaan bilicdiisa gaalo war dheeldheel laguma keenin iyo dhiiblaan dhalinyaradi maatayo dhulka arbaaxay. fanaaniintu waxay halkaasi ku soo bandhigeen heeso iyo gabayo cusub ay ugu talagaleen kooda Luulyo maalinta xornimada Soomaaliya. sidoo kalena kooxda hidaha ee dhaqan ayaa halkaasi ku soo bandhigay ciyaaraha hidaha ee dhaqanka Soomaaliyeed. ogow garashadu hub weeye, gumaysi waxaa ka xora bulshada laga gadan damiirka. xafladaasi waxay ku soo gabagabowday jawi farxad leh iyo hawo fiican. Farax Yaasiin Cismaan, goobta xafladda kooda Luulyo, Universal TV, Malmo.